Maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay wargeliyeen mas'uuliyiinta Qatar ka hor inta aanan Israel weerarin xubno ka tirsan Xamaas oo ku sugnaa magaalada Doha ee dalka Qatar. Hase ahaatee, Qatar ayaa si cad u diiday sheegashooyinkaasi. Bayaan ka soo baxay aqalka cad Salaasadii ayaa yimid saacado kadib markii la duqeeyay caasimadda Qatar ee Doha. Qatar waxay ahayd dhexdhexaadiye hormuud u ah wadaxaajoodyada xabad joojinta ee uu Mareykanka taageerayo si loo joojiyo dagaalka Gaza. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Caroline Leavitt ayaa u sheegtay wariyaasha in militariga Mareykanka ee maamulka Trump uu ku wargeliyay in Israel ay weerar ku qaadayso Xamaas, kuwa oo nasiib darro ku sugnaa meel ka tirsan Doha. Waxay sheegtay in Trump uu faray ergeyga gaarka ah Steve Witkoff inuu u sheego Qatar weerarkan soo socdo. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa ku tilmaamtay sheegashadaasi kuwa aan waxba ka jirin, waxayna caddeysay in aysan jirin wax wargelin hore oo Mareykanka ka soo yeertay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar, Sheikh Mohammed bin Cabdiraxmaan Al Thani, ayaa sheegay in wicitaanka Mareykanka uu yimid 10 daqiiqo kadib markii weerarka uu bilowday, waxaana uu ku tilmaamay dhacdadaasi mid argixisaan yiraahdee. Xamaas ayaa sheegtay in duqeyntan ay dishay 5 xubnood oo ka tirsan ururkooda, balse kooxda wadahadalka hogaaminaysay ay badbaadiyeen. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Qatar ayaa xaqiijisay in qof ka mid ah askarta amniga Qatar uu ku dhintay. Trump ayaa markii dambe sheegay inuu aad uga xun yahay goobta weerarka, isla markaana uu Qatar ku wargeliyay inaanay mar kale dhici doonin. Waxa uu ku celceliyay in weerarkan uusan horumarinaynin ujeedooyinka Israel iyo Mareykanka, balse digniintiisu ay ahayd mid aad u soo dahday. Qatar waxay horey u fududeysay xabad joojino dhowr ah dagaalkan Gaza bishii November sanadii 2023 iyo xabad joojin 6 toddobaad ahayd oo Janaayo horaantii sanadkan 2025 la hirgeliyay. Doorkeeda waxaa si joogto ah u amaanay maamulada Joe Biden iyo Trump. Weerarka Israel ee bartamaha Doha waxa uu dhacay maalmo kadib markii Trump uu Xamaas ugu hanjabay inay aqbalaan shuruudihiisa xabad joojinta. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Xamaas in ay dib u dhigayaan wadaxaajoodyada, halka Israel lagu eedeeyay in marar badan ay carqaladeysay xabad joojinta. Trump ayaa Truth Social ku qoray Israel waxay aqbashay shuruudahan waa waqtiga Xamaas ay sidoo kale aqbali lahayd, waxaana u digay Xamaas cawaaqibka ka dhalan kara haddii ay ka biyadiidaan in ay aqbalaan xabad joojinta. Tani waa digniintii ugu dambeysay, mid kale ma jiri doonto buu yiri. Xamaas ayaa sheegtay in xubnihii la weeraray ay ka doodayeen soo jeedinta cusub ee Trump. Ururka waxa uu intaa ku daray in weerarkan uu caddeyn u yahay in Netanyahu iyo dowladdiisa aysan rabin heshiis, oo ay si ula kac ah u carqaladeynayaan fursadaha iyo dadaalada caalamiga ee la doonayo in lagu gaaro wadahadallo dhammaystiran oo wadada u xaaraya xabad joojin. Leavitt ayaa dhankeeda sheegtay in Trump uu aaminsan yahay in dhacdada murugada ay noqon karto fursad nabadeed, waxayna intaa ku dartay in Trump uu la hadlay Benjamin Netanyahu kadib weerarka, balse uusan caddeyn haddii uu ugu hanjabay tallaabooyin ka dhan ah xulafada u dhow ee Mareykanka. Qasriga Amiirka Qatar ayaa xaqiijiyay in Trump uu la hadlay Amiirka Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani isagoo cambaariyay weerarkan. Sheikh Tamim waxa uu sheegay in Qatar ay si adag u cambaareynayso weerarkan xadgudubka ah, kaasi oo lagu tilmaamay jebin cad oo lagu sameeyay madax banaanida dalka, xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga. Wuxuu intaa ku daray in weerarkan khatar ku yahay xasiloonida gobolka, isla markaana uu carqaladeynayo dadaalada lagu doonayo in lagu dejiyo xiisadda laguna gaaro xalal diblomaasiyadeed oo waarta. Qatar waxay ku dhawaaqday inay qaadi doonto tallaabo kasta oo laga maarmaan u ah ilaalinta ammaankeeda iyo madax banaanideeda, balse weli kama aysan bixin doorka dhexdhexaadinta. Khaliil Jahshan, agaasimaha xarunta Carabta ee Washington DC, waxa uu warbaahinta Al Jazeera u sheegay in dalal badan iyo dadka gobolka ku nool ay weli u arki doonaan maamulka Trump inuu qayb ka yahay dhacdadan. Qatar oo weli taageero weyn u ah xuquuqda Falastiiniyiinta waxaa loo aqoonsaday 2022 xulafo weyn oo aan NATO ahayn, taasi oo muujinaysa xiriirka istiraatiijiga ee u dhow. Waxa uu ninkani sheegay in sharaftaasi ay hadda waxba markaasi ka dhiganayn. Haddaba diblomaasi hore oo Mareykan ayaa isna sheegeen weerarkan oo ka dhacay meel u dhow saldhigga weyn ee Mareykanka ee Al Udeid ay ahayd arrin lala yaabo oo xadgudub ku ah qarannimada waddankaasi. Israel ayaa weerar cirka ku qaaday dhisme la degan yahay oo ku yaala magaalada Doha ee dalka Qatar, taasi oo Xamaas ay sheegtay inay ku dishay 5 ka mid ah xubnaheeda, balse ay ku guuldareysatay inay dilaan
kooxdoodii wadaxaajoodka u ahayd ee ka shirayay soo jeedintii ugu dambeysay ee Mareykanka ee ku aadaneed xabajoojinta Gaza. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu amray weerar sax oo bartilmaameed leh oo lagu qaaday Xamaas, taasi oo jawaab u ah weeraradii kooxda ay geysatay 7 Oktoobar 2023 iyo toogasho ka dhacday magaalada Qudus oo ay ku dhinteen 6 qof toddobaadkan. Ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani waxa uu sheegay in dalkiisa uu ka fikirayo inay ka jawaabaan weerarkan qaawan ee Israel, isagoo inta ku dareen Mareykanka uu uga digay 10 daqiiqo kadib markii uu bilowday. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in aanu markaasi ku faraxsaneen wixii halkaasi ka dhacay. Wasiirka waxa uu shaaca ka qaaday in Mareykanka uu ku wargeliyay Qatar weerarkan 10 daqiiqo kadib markii uu dhacay, isagoo xusay in Israel ay adeegsatay hub aanu qaban raadarka. Waxa uu ku tilmaamay waxa dhacay inuu yahay isku day lagu doonayo in lagu qalqalgeliyo amniga iyo xasiloonida gobolka, isagoo intaa ku daray in ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu oo gobolka u horseedayo heer aan laga soo laaban karin. Haddaba waa kuma hogaamiyaha Xamaas ee ku jiray dhismihii Israel duqeysay? Khaliil Al-Hayy waxa uu dhashay 5 November 1960. waa siyaasi Falastiini oo soo noqnoqday ama horey u soo noqday gudoomiye ku-xigeenka xafiiska siyaasadda ee Xamaas ilaa Agoosto 2024. Al-Hayy waxa uu shahaadada koobaad ka qaatay Jaamacadda Islaamiga University of Gaza, halka heerka labaad ee jaamacadda uga baxay Jaamacadda Urdun. Shahaadada PhD waxa uu ka qaatay Jaamacadda Quraanka Kariimka iyo Culuumta Islaamiga. Waxa uu ku biiray Xamaas kadib markii uu dhameystay heerka koobaad ee jaamacadda. Xilligaasi waxa uu ka shaqeyn jiray macalinimo. Al-Hayy waxa uu 10 sano ahaa sarkaal ka tirsan Xamaas. Waxaa loo arkay inuu ahaa nin si aad ay isugu dhawaayeen hogaamiyihii hore ee Xamaas Yahya Sinwar. Waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah dadka tirada yar ee Sinwar uu dareemay inuu isku haleyn karo. Bishii November 2019, Al-Hayy iyo ruuxii Mushtaha waxay hogaaminayeen wafdi ka baxay marinka Gaza, iyagoo booqday dhowr wadan oo ay ku jiraan Turkiga iyo Lebanon. Al-Hayy waxa uu sidoo kale hogaaminayay wadahadalo dib u heshiisiin oo ay yeesheen kooxda Fatah. Bishii Janaayo 2022 waxa uu booqday Algeria kadib martiqaad uu ka helay madaxweynaha wadankaasi Algeria. Haddaba safarkan ka hor waxaa la sheegay in wafdiga ay Qaahira kula kulmeen saraakiisha sirdoonka. Dhinaca kale, Al-Hayy waxa uu sidoo kale hogaaminayay wadahadaladaasi, hase yeeshee waxaa leeyahay haddaba 7 ilaa 8 ka mid ah qaraabada Al-Hayy oo ay ku jiraan 2 walaalihiis ayaa lagu dilay weeraro ay Israel ku qaaday gurigiisa 2007. Waxaa fashilmay isku dayo dil oo lagu doonayay in isaga lagu qaarijiyo sanadkii 2008. Waxaa sidoo kale mid ka mid ah walaalihiis lagu dilay duqeyn dhanka cirka. Wiil kale, gabar uu sodog u ahaa iyo wiil awow u ahaa ayaa lagu dilay weerarka cirka oo lagu qaaday gurigiisa bishii July 2014 intii lagu guda jiray dagaalka Gaza ee sanadadaasi. Inta ayuu kusoo gabagabeynaya muuqaalka maanta. Wixii aragtay iyo fikir ah qaybta commentiga inoogu reeb. Fadlan like garee muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. waxaadna naga dheehanaysaan barta iyada Manfac TV. warar dambe oo xiiso badan ayaan soo gudbin doonaa oo halkan aan idinkugu baahin doonaa.